aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan soo booqano bariyahan saad la socotaan 2 usbuuc ku dhawaad waxaan joognay magaalada Garbaharey annagoo shaqooyin kala fara badan ku jirnay oo dhinacyo badan taabanayo shaqada ugu muhiimsan ay tahay shaqada amniga wax walba amniga ugu horeeyo maxaa yeelay Nabi Ibrahim markuu kabcad dhisay waxa uu ka hadlay koowaad oo Ilaahay uu ka bariyay amni bay ahayd marka amni hadaan la helin wax kala dhaqaaqahay ma lahan ciidanka amniga marka bulshada ku dhex jira waa ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaafureegahay banaanka oo muxuu ahaa cadawgii muxuu ahaa argixisada ahaa aad iska kaalmeysanaysaan oo uga harin asaga laftirkiisa oo dagaalka aad kula jirtaan saad la socotaan 2 usbuuc aan joognay waxaan sameeynay muxuu ahaa u koorgalid aan ugu koorgalaynay habsam u socodka howlaha dawladda ay ka wado muxuu ahaa guud ahaan gobolka Gado gaar ahaan degmada Garbaharey oo ah xarunta gobolka Gado waad la socotaan dawladda Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Xamse Cabdi Barre iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka labada aqalba ninka ceelka ninka ku garbiyo wuxuu yiri igama dhagiiride hay uu riixin buu yiri intaas waxaad wada haysataan idinkoo difaacna ku jiro qorgiinina haysto kii yarana waad wadataan maan u maleynayaa saas la wada hayay wada socotaan waxaan kuma seegana baraha bulshada ama mataqaana warbaahinta waxaan kuma seegano waxyaalihii tirar ku ahaa dawladda oo koow amniga ahaa oo laba amniga ahaa oo saddex amniga ahaa waxa afar ka ahaa wax la yiraahdo dhameystirka dastuurka mar hadii dastuurkii la bilaabay oo la beel mariyay wax la yiraahdo in loo kaco doorasho qof iyo cod ah uu dalka u dareersaday oo Ilaahay haduu ku samato ogol yahay deegaan doorashada muxuu ahaa golaha deegaankana muxuu ahaa la qaatay in la qaato waxa laga marmaan noqotay in dalka Soomaaliya meelaha ay ka hirgeli karto doorashadaas in la aado oo aadaan howlwadeennada aadaan golaha fulinta aadaan xildhibaanada labada aqal aadaan ilaa iyo meel kasta ha ahaatee saad la socotaan waxa nasiib u hesheen haddaad tihiin gobolka Gado ama Jubbaland dhulka la yiraahdo in 8 degmo ay nooga soo hagaagtay in la asteeyo deegaan doorashada loo asteeyo 8daas degmo waxa weeye magaalada Kismaayo oo magaalada madaxda ku meel gaarka ahayd magaalada Afmadow iyo 6 degmo ee gobolka Gado 8daas degmo muxuu ahaa waxa loo asteeyay oo dastuurku u asteeyay oo guddiga u asteeyeen in doorasho laga qaban karo maxaa wacay deegaanada kale wali gacanta cadawga ku jiraan waxa la qaatay marka maxaa loo reebayaa gobolka Jubbaland uu ballaarnay maxaa ku dhacay in isdhahaan baa laga yaabaa ama dadweynaha is warsadaan 9kii degmooyinka jiray ee dawladdii Allah u naxariistay uu hogaaminayo Maxamed Siyaad Barre degmooyinka jiray baa la soo qaatay hadda gobolka Banaadir tusaale ahaan 20 degmo way haddeer laakiin maxaa ka ansaxmay oo la qaatay 16 degmo maxay yihiin 16kaas degmo waa 16kii kacaanka uu ogaa way marka anagu dastuurkan hadda muxuu ahaa intaas uu qaatay 91kii dawladda markay 91kii dhacaysay wixii oo dastuurka qaatay yaa la aqoonsay haleeyay marka Jubbaland waxay nasiib u heshay 8daas degmo marka in la wada maro oo maxaa la yiraahdaa la gaarsiiyo oo la yiraahdo laga hirgeliyo amnigi mar hadii la sugay qodobka labaad oo la soo hayo muxuu ahaa la xaqiijinayo wuxuu yahay in maxaa la yiraahdaa doorashadii laga hirgeliyo intaanu marka doorashada dhicin maxaa loo baahan yahay wacyigelin barsaabkii baa yimid wacyigelin buu sameeyay maamulka degmada maxaa la shiray waa la isku afgartay arintaas ayada ah maxaa la yiraahdaa dadweynihii baa la shiray ay muxuu ahaa qaybihiisa kala duwanaa cuqaashi baa la shiray dhalinyaradii muxuu ahaa cid aan la shirin oo la gaarsiinin ma lahan hadday saas tahay ciidanka booliska Soomaaliyeed ama dhammaan ciidamada qalabka sida waxa uga aadan waxa la yiraahdo guddiga doorashada ee qaranku u qabtay ee haatan simraarka u dhamaaday ee maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa qaabkii u soo hirgelin lahaayeen marka la gaaro waxa weeye cidda fulinaysa doorashada ee amnigeeda qaadaysa waa ciidanka booliska Soomaaliyeed taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed baa dhabarka saaranayo ayagoo kaalmeysanayo ciidamada qalabka sidoo kale booliska Soomaaliyeed marka wuxuu saldhig u yahay ama udub dhaxaad u yahay tii amniga guud marka laga soo tago midda doorashada asaga u ah maxwarkii u dhaxeeyay ee dhaqaajin lahaa ama ilaalin lahaa idinka u ah waxaad nasiib u hesheen intiinan haatan meesha fadhido iyo in kale lagu soo dari doono Ilaahay idinkiis inaad la wareegtaan ama aad shaqo ka qaban doontaan markii la keeno ama la gaaro xilligaas ayada ah oo aan badheeraan doon hadii la yiraahdo
marka inaan inahaas idin sheegnaan rabnay ma ahan markaan garbaharey ka hadlayno waxaan la hadlaynaa luuq waxaan la hadlaynaa doolow waxaan la hadlaynaa beled xaawo waxaan la hadlaynaa buurdhuubo waxaan la hadlaynaa ceelwaaq waxaan la hadlaynaa baardheere waxaan la hadlaynaa afmadow waxaan la hadlaynaa kismaayo iyo dhammaan degmooyinka jubbaland oo dhan inta xorta ka ah ayaan la hadlaynaa waa inaad u diyaar garowdaan qaybta aad kaga lahaydeen in kaga soo aaday doorashadaas soomaaliya u guurtay oo ay ka guurtay wixii dadbanaa oo ay u guurtay wixii diritada ahaa oo maxaa loogu guurahayaa waxaa loogu guurahayaa si loo helo barwaaqo si loo helo cadaalad qof walba wuxuu leeyahay markii laga hadlahayo intaan la kulmayna odayaasha cid walba ama qabiil walba oo hoos jafa ku imaanayaan annagaa u badan beledkan waxba kagama jirna matalaad kuma lihin qolo kale ku imaanayso magaaladoo dhan iyo soonaha dhan naga u badan matalaad ma lihin qolo kale dhammaan qabiil walba oo yimaado oo aan muxuu ahaa waftiga u dhageysanayay waxa cabashadooda ay tahay waxa weeye inaysan cadaalad helin oo aysan ka helin wax alla wixii mataqaanaa ay lahaayeen inaysan helin oo beledkoo dhan ayaga yihiin 80% qabiil walba ku imaado 80% annaga way leeyahay magaalada waana Soomaali caadideeda waa maxaa marka lagu heli karaa cadaalad waxaa lagu heli karaa doorashada la yiraahdo deegaanka ama councilka marka la dhiso oo la raaco wixii la raaci jiray cid walba muxuu ahaa cadaalad bay helaysaa cid walba wuxuu helaysaa maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa reer walba wuxuu helayaa wuxuu xaq u lahaa ninkii shanla wax ku qaadan jiray shan loo ku helayaa caaga shanlaha ninkii toban la wax loogu shubi jiray toban la soo qaadanaya ninkii u buuxinaysa maxaa la yiraahdaa foosto soo garangarsan doona ninkii u buuxinaysa booyad soo garangarsan doona ninkii u buuxinaysa muxuu ahaa tarale soo qaadan doona cadaalad ilaahay baa laga helaa laakiin waxa laga heli karaa qof cod baa laga heli karaa marka taas inta laga gaarayo Soomaalidu waxay tiraahdaa kun talaabo markaad u socoto hal talaabo la qaadaa talaabada ugu horeyso la qaadayo weeye councilka wala dhisayaa councilka marka la dhiso waxa ku xigi doona qof codka weynaa marka waxa weeye cadaalad wala heli doona cadaalad dadka fulilaha marka waa booliska Soomaaliyeed oo kaalmeysanayo ciidamada qalabka sida siiba saaxiibood nabad sugidda iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed insha Allah inaas ina idin sheegnaan rabnay waxaad xaq u leedihiin wax xaq u leedihiin waan naqanaa insha Allah ta'ala dalka sidii muxuu ahaa dawladda muxuu ahaa u dhalatay 2022 dawladdan haatan aan ka tirsannahay ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo waa sax in aanan gadal imaanin waa sax laakiin hordaankii baan ahayn waa nimid ilaahay idinkiis dawladda dhan waa wada imaan doontaa laabaheeda kala duwan baa imaan doono booliskii xukuumadda u imaan doono taliyahooda imaan doono militariga xukuumadda imaan doono taliyahooda u imaan doono nabad sugidda xukuumadda u imaan doono taliyahooda u imaan doono agaasimahooda wasaaradda bay u imaan doonaan barasaabo wasaarad walba wasaaradda biyaha way imaan doontaa wasaaradda maxaa la yiraahdaa haweenka way imaan doonaan wasaaradda bay'ada way imaan doontaa xanaanada xoolaha way imaan doontaa wasaarad walba hay'ado dhan way imaanayaan marka dadkii sugi lahaa amniga gacantaana maxaa la yiraahdaa amniga ku sugi lahaa gacantaana doorasho ku gaarsiin lahaa waa ciidamada qalabka sida gaar ahaan booliska oo hordhaan u ah yaatiin maxaa yeelay tusaalahaas waxaa yiri muxuu ahaa waagii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake la weydiiyay soo xilligaas inuu rasuul umaleynaa doorashada dagaalka isku wadaan baleed gacantaana waa ku dagaalamayna wiiro gacantaana doorasho ku galeynaa tiyo kale weeyo oo haatan gacanna shabaabka la iska celinaya ergixisada gacanna doorashada lagu hergelinayaa dadka hergelin lahaa shabaabkana la dagaalami lahaa doorashada hergelin lahaa adinka weeye ilaahay idinkiis ina hadalka in ku dheereeyo mar rabo aad iyo aad baan salaameynaa xuquuq badan inay maqato waa ognahay wax walba inay maqan yihiin waa ognahay maalin horeeto muxuu ah mar aan muxuu ah la hadlayno wax garadka iyo qof kasta iyo waxay soo hormarinayaan baahidi annagoo og bay haddana noo hormarinayaan war dawladda maxaad noogu wadaan buundooyinka ma noo wadaan kaabayaasha ma noo wadaan dalcaddi ma noo wadaan gaadiidka ma noo wadaan sax weeye inta waa sax weeye laakiin haddii markii baahidaas iyo hawshaas iyo kulli in la daboolaan rabaaye see lagu dabooli